Samokuar, Samakuar, Samokuar, Samakuar, Sarreeya caalamka sulan bilay dhulkiisa. Samakuar iyo bogaadi sugan, hambalyo suuban kugu salaamay Samakuar, hambalyo suuban kugu salaamay Samakuar. geesiyaashii naftooda u safeeyay qaranimada Soomaaliland. geesiyaashii naftooda u safeeyay qaranimada Soomaaliland. iskooda dhowrsan kugu salaamay Samakuar, iskooda dhowrsan kugu salaamay Samakuar. guul sidee xambaarsan soo noqoshadiisa, kalsoonidu mutaystay dastuurka kugu salaame. midnimo walaalnimo gobonimo, midnimo walaalnimo gobonimo, islaamnimo kugu salaame. Samo samiyo Islamimo kugu salame. Samo samiyo Samakuar, 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 Samakuar. ugu horeyn haddii umad meel isugu timaado si ay meeshaas ugu qurux badnaato, dhammaantiin aan nabiga ku salino. marka xiga safiirka, gudoomiyaha jaaliyadda, gudoomiyayaasha xisbiyada, salaadiinta, cuqaasha, aqoonyahanka halkan fadhiya, hooyooyinkii, hablaha iyo walaalaha halkan fadhiya, dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa ka bacdi run ahaantii umaanaan baranin inaan khudbada caadiya dad u jeedino. waa in markaad mar walba dagaal furina ku jirto, ku adkee iyo garaac mooye wax kale garan maysid. markaa horta aad bay horta sharaf iigu tahay inaan halkan maanta aad nagu soo dhaweysaan. dadku waxay yidhahdaan inta badan hees baa jirta la yidhaahdo haybad waxaad ku leedahay dhulkaaga hooyo. ama dareenkayga caawa aad buu u sarreeyaa. dareenkayga wuxuu qaadayaa haybad waxaad ku leedahay dadkaaga. marka aad baad u mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad noo soo dhaweyseen. run ahaantii aniga magacayga waxaa la yidhahdaa xildhibaan axmed khaliif. dadku ina khaliif bay yidhahdaan, laakiin ina khaliif lama yidhahdo. magacaygu waa axmed khaliif jaamac saalax weeye. gudoomiyaha golaha wakiilada ilmo khaliif baana la yidhahdaa, waa laygu qalda, laakiin anaa magacaygu axmed khaliif yahay. mar dhaweyd suldaanka wuxuu yidhi, saaxiibkay buu yidhi dee magacii caanka uu ku ahaa waa ka bedelo qiiraan u bedelay buu yidhi. suldaan waxay aniga inaad iga bedesho magac yar baa hoos laygu dhigaayo, weliba dumarka aad igu xanto xidhan wax xildhibaan tontoomo. maalin dhaweyd baa waxaa anoo meelshan yare moolkan yare maxaa la dhahaa magaalada ugu weyn magaciis muxuu ahaa wasfiil anoo maraya, oo aanu 2 jeer baan tegey. markii hore waxaan israacnay axmed indho iyo nin kale, dabeetana anagoo meel suuliya deedayno baan gabadh naga soo horbaxday. inta ii timay ugu tiri mad xildhibaankii tontooma ahayn. dabeetana yaa baa ilaa ii keen waxaan ku ihi waniyahow hargeysaan isku ogeyna London magacii buu kaaga daba yimi. marka intaasi waa iga kaftan. kolle xafladani waan uga mahad celinaynaa cid kastoo soo qabanqaabisay. SSUK anu waxaan rabaa markaa inaan warbixin yaroo kooban idinla wadaago oo ah golaha wakiilada iyo shaqadaanu hayno iyo mid guud ee xaaladda guud ee dalka ah. golaha wakiiladu sidaad ogtihiin waa hay-adda u sarreysa sharci dejinta. waxaana inta badan shaqadoodu tahay inay xeerar sameeyaan, shuruuc sameeyaan. dowladnimadana waa dhadhaarka labaad weeyo check and balance inay xukuumadda dhexe shaqadooda ku ilaaliyaan. waa shaqada koobaad. golaha iyagani waa golo cusub runtii.
waqti adagna ku soo beegmay iyo duruufo adag oo waxaan ku soo beegnay waqti political crisis waddanku ka jiro shakhsiyan anigu political science baan bartay degree-gayga oo waddanka Hindiya waxaan ku soo bartay mastertaydana waxaan bartay social work marka muddo badan waxaan ku shaqeynayay social work siyaasad ahaan waxaan islaa mustaqbalka dadkaaga iyo dalkaaga aad u shaqaysid runtii cilmiga siyaasadda aan bartay iyo cilmiga siyaasadda ee waddanka yaala waa laba wax oo kala duwan weey aad u kala duwan weey siyaasaddan waxaan u samaysanay ama dimuqraadiyadda inagoo aynu samaysanay ama xisbiyada aynu samaysanay waxa weeye inaan qabyaaladda kaga duwanno laakiin waxaad moodaa xisbinimadeennii iyo siyaasaddeennii iyo dimuqraadiyaddeenii inay noqotay inay reer ahaan tartamaan practically marka laga hadlo siyaasadda Soomaaliland ma aha dimuqraadiyad magaca ma ka sheekeynaa laakiin waa reer tartamaya reerun baa la yiri nin walba warqadda waxaad ka hesho ayaad leedihiin muddada aan joognay golaha iyagaasi waxaan noo qabsoomay 5 xeer inaan 6 xeerna ansixino kow inaan markii u horeysay qabanno xeeroosaadkii golaha oo ah xeerka uu golahu isku maamulo laba xeerkii shaqaalaha xeerkii muxuu ahaa xeerkii macdanta iyo xeerkii caymiska waxa kaloo golahu intaa uu qabtay 70 mudane oo wasiiro iyo hay'ado madax bannaan isugu jira oo ansixiyay golaha iyagu wuxuu shaqeeyaa sanadkii 3 kal fadhi saddexda kal fadhi uu shaqeeyana waa 7 bilood 5 biloodna waa fasaxaas markaa micnihiisu ma aha inaan guryahaga iska fadhiisano iska nasano waxa loogu talagalay inay xildhibaanadu ku noqdaan constituency laga soo doortay iyo deegaanadii si uu xiriir uga dhaxeeyo qofkii la doortay iyo deegaankiisii uu matalayay taasi anaga nooma suurtagelin caqabado badan awgood duruufaha dhaqaale ee golaha iyagu iyo miisaaniyadeedii oo yar noomay suurtagelin jirin waxaa jirtay in golihii naga horreeyay ay taas iyadoo ay u suurto gashay laakiin waxaa jiray waxa wax ka caawin jiray hay'ado oo dhaqaale siin jiray oo xildhibaanku inuu 3 jeer kal fadhigu fasax noqdo oo deegaankiisii ku noqdo waxa la siin jiray shidaalkiisii habeen dhixiisii iyo kal fadhi walba muddo 10 cisho oo ku noqon jiray deegaankiisii hore oo laga dabooli jiray kharashkii uu intaa ku hawlgeliyay waxa dhacday mar haddii golahaygii naga horreeyay muddo kordhintiisii ay badatay in dhaqaalihii hay'adihii dimuqraadiyadda ka shaqeynayay golaha caawinayay ay dhaqaalihii ay ka jaraan sanadku markuu ahaa 2015 golahaygii markuu yimi aan aragnay in dhibaatadaasi jirto waxa shirguddoonku magacaabay guddi la yiraahdo strategic plan oo sameeynayay qorshihii 5 sano ee golahu ku shaqeyn lahaa guddidaas oo aan aniga iyo saaxiibkay Maxamed Abdi ka mid ahayn oo aan sameynay 5 sano ee soo socota ee golaha qorshiga ku shaqeyn lahaa taasoo insha Allah sanadka cusub ee 2023 naga caawin doonta inaanu helno activity fara badan oo aan ku booqano constituency-ga laga soo doortay oo aan dadkii u tagno oo aan accountable u noqono dadkiina soo doortay aan duruufahoodii xaaladooda kala duwan ku ogaano oo wax kasta oo xukuumadda dhexe kaga maqan aanu dib ugu soo celino taasi waa shaqadayada intaa markaan kaga baxo waxaa laga yaabaa dad badani baarlamaanka iyagan cusubi ma nihin rag xantooda moogan in badan wixii laga filayay waxaa laga yaabaa in ay dadku ay hoos uga dhacday sababtuna la isma weydiinin oo imika anu siyaasadda wali waan ku cusub oo fresh politician baan ahay markaad siyaasadda banaanka ka joogto iyo markaad gudaha ku jirtana waa farqi weyn waxaa laga yaabaa markaad banaanka joogto wax badan oo kuu fudud in markaad gudaha joogto ay reality tahay kala duwan tahay waa laba sawir oo aad u kala duwan weeye golaha iyaga waxaa laga yaabaa inaad waxan weyneedeen ood ka filayseen inuu idin shaqeeyo waxaa laga yaabaa dad badan inay imika isleeyihiin maxaa xildhibaanadii dagaalkan socda iyo waxan socda iyo buuqan jira muxuu yahay waxaan rabaa dagaalka baarlamaankuna waa ta sababtay political crisis-ka maanta ka jira waddankeena
maxaa sababay dhowr wax baa sababay markaa waxaan rabaa inaan la wadaago kow marka horeysa dadku isma weydiiyaan sidee annaga nalagu soo xulay xulitaanku qayb weyn buu ka yahay aniga idin sheego dimuqraadiyaddiinu waa dimuqraadiyad beelaysan run haddaan idin sheegana 82 xildhibaan ee baarlamaanka fadhiya xul ma aha ee waa xal waxaa jira shakhsiyan anigu waxaan aaminsanahay in badan oo iga mudan iga aqoon badan iga raganimo badan iga aragti dheer inay bannaanka joogto laakiin nasiibku aniga maanta ay siiyey mushkiladda jirtaana waxa weeye dimuqraadiyaddiinni maadaama ay reer tahay reer walba the best one looma soo xulin reer walba waxaa maamula oo horjooga u ah dad 10 nin ilaa 12 nina 2 siyaasi 2 ganacsade 2 suldaan 2 caaqil iyo wadaadda imika ku soo biiray dabadeetana reer walba marka doorasho soo gaadho nin walba damac buu yeeshaa waxaa laga yaabaa 5 6 7 nin inay damac yeeshaan 10 kaan nin horjoogayaasha reer walba horjoogaha u ahi ma eegaan yaa ugu aqoon badan yaa inoogu fariisan yaa qarankana u shaqaynaya yaa deegaanka iyo degmada iyo tuulada aynu inagu matalnay iyo deegaan ahaan iyo reer ahaanna wax u qaban karaa oo waxa dowladda kaga maqan usoo dhicin karaya kuma soo xulaan nin alla ninka ay isleeyihiin waad kaxaysan kartaan danihiinu fulin karayaa ayay kaxaysanayaan raggii kale ee wax damac lahaana waxay noqdaan qaar la xidhxidho qaar lacag loo celiyo oo lagu laalusho iyo qaar la bahdilo ciil iyo maraar dilaac suuqa u gala intaa marka la dhameeyo hebelkii ay isku raaceen waa la kaxaynayaa waxaa loo geynayaa xisbigii marka loo geeyo uu aqbalayaa ninkaas xisbinimada markaa musharaxnimada xisbiga ma musharaxuu siiyey mise reerkuu siiyey nimankaa wada ma siinin ninkan musharaxa wuxuu siiyey nimankaa horjoogayaasha halkaa markay marayso waa la kixiyey haddana xaflad baa loo qabtay kii bari iyo maraykan iyo meel walba joogay qurbo joogay qolqoljoog waxaa loo sheegaa la yidhi hebel baa idiin ah musharax baabuur baa lasoo daba dhigay tuuladii ama degmadii baa la geeyey inta meel la fadhiisayey baa guddi loo qabtay dhaqaalaa loo ururiyey idinkoo qurbo jooggiina waa kacsantihiinoo waryaadna laga badin baa tireen wax alla waxaad hayseen macal habrihii dahabkii waa soo tuureen dabadeetana ninkii waxaa la yidhi halkaa ii fadhiiso adigu rag baa codkii uga ololayay dadkiina waxaa la yidhi yaan laynaga badinin kama dhexeeyo xidhiir qofka wax dooranaya ee candidate-ka ah intuu dadkiisa u tago cod ma weydiisan ilaa waa nin meel walba loo xidho kooto loogu xidhaya doorashadii baa dhacday sidii buu ku soo baxay markii horena waa loo shaqeeyey xisbinimada uu ku helay candidate-ka marka labaad uu soo baxayna ilaa dadkii isagu qof u shaqaysta ma cid walba waa ta laga reebee xildhibaannimada miyaa loo shaqeeyey mise uu shaqaystay waa loo shaqeeyey halkaa markay marayso haddaba nimankan soo doortay maxay iga rabaan aniga kow suldaankii ee reerkayga ah suldaanmo kaluu tartan kula jiraayo dowladdii buu rabaa inuu ka ag dhawaado markaa wuxuu rabaa inuu ismuujiyo inuu reerkii isagu libaax ka yahay way kaxaynayaan ganacsadii muxuu iga rabaa isaguna qandaraas buu rabaa inuu igu doonto ama in cashuur dhaaf loo sameeyo siyaasigii muxuu doonayaa xil buu doonayaa isagina in loo magacaabo wasiir buu dooni agaasin buu dooni ama inta xildhibaanka laga xayal qolna reerkaygu wasiirba malayna mar halkan ku geenaaye saasaad ku soconaysaa wadaadaan jirin baa soo baxay wadaadkiiyo maxaad rabtaa carabtaa imika inugu furanoo timir iyo mashaaruuc iyo sadaqooyin iyo waxbaa laga soo qaadaayo wadaad walba inuu masaajid istaabuu rabaa oo iminka somaliland wadaadku haddaan masaajid lahaynba wadaadnimadiisu waxba kama jiraan dabadeetana intaasoo qof baa igu xeeran oo i soo dhistay taasi waa caqabad qofka xildhibaanka ahayna laba waxa inuu accountable u noqdo weeye kow qaranka waa tukoowaad waa tu guud oo laga sameeyaa ilaalinta guud ee qaranka iyo sharciga laakiin accountability-ga dhabta cidda la xisaabtamayso waa laba wax waa xisbiga waa inuu xildhibaan ku shaqeeyaa policy party line-ka xisbigiisa laba waa inuu connection la leeyahay oo uu yacni u yahay constituency-giisa accountable yahay dadkii soo doortay de marka xisbigiina suldaankii geeyey
marka dadkiina uu caaqilkii dadkii iga soo qaaday codkii iga sii qaaday labadaba accountable miyaa noqonaya waa maya halka iyadoo mareysaan soo baxnay sida ogtiin doorashadii dhacday golo deegaan iyo waxay ahayd baarlamaan isku sidkan runtii aqlabiyadii ugu badnayd waxaa helay mucaarad hadday golo deegaan noqoto iyo hadday golo baarlamaan noqotaba 5 magaalo oo 6 magaalo ka mid ah gobolka wadanka 5 maayir baa ka ah xisbiyada mucaaradka xisbiyada mucaaradku waxay heleen 52 xildhibaan waxa dhacday markaa wadan walbana cid baa u sareysa cidda mar walba u sareysan baa wax wanaajisa waxna xumaysa oo wadankeenu waxa weeye hal qof baa awood walba iyo talo walba iyo wax walba waxa laga sugaa waxa weeye madaxweynaha habarta caawa bari ku haraada wasiir la hadli mayso xildhibaan la hadli mayso inta soo istaagtay oo madaxweynihii halka ay hay'adeen jaranjaro iyo waxyaabo badan ay ka hooseeyaan waxa dhacday markaa khilaafku halku ka bilaabmay waxa weeye 15 June 2021 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu isugu yeeray xildhibaanadii kulmiyeen soddona wuxuu si public ah u sheegay inuu dhisayo gudoomiye Faraton isagoo in labada xisbi ay alliance yeesheen isagoo in labada xisbi ay isbahaysi coalition yeesheen isagoo inuu 30 xildhibaan haysto isagoo in gudoomiyaha baarlamaanka ninka la dooranaya uu 42 xildhibaan u baahan yahay saashay isweydiinta waxa weeye marka xisbigaagii 30 helay xisbi kalena uu 30 helay xisbi kalena uu 20 helay ee labadii xisbi mucaaradka israaceen saashay isweydiinta waxa weeye wadan dimuqraadiyadda baa joogtaan oo waad aragteen oo waxa jira coalition parties baa jira parties ka israacada waxa weeye marka israacay party kale uu aqbalaa oo inta badan cidda mar walba dawladda haysa waa loo heshiiyaa oo shalay tii ka horeysay 2005 dawladii kulmiye waxay u heshiiyeen udub maantana waxa uu heshiiyay wadan iyo cid baa u heshiiyay waa tilka bitilka madaxweynuhu ma aqbalin in doorashadii laga guuleysto waxay isweydiin markaa 30 xildhibaan haysato 42 lagaaga baahan yahay 12 soo aray halkeed ka doonaysaa dabeetana waxa dhacay mar raba inaan hoos uga daadego waa ogtihiin waxa dhacay sidii de markuu furmo suuqa ciyaartooyga waad joogtaan in xildhibaan dhan oo umad soo dooratay meel la soo taago la halkaas ku biiray waana waxyaabaha foosha xun leh ee baysigii u horeeyay inaga xumeeyay وانا هلك خلافك برلمانكو كبلام وانا أدقت هاي إن معارض لبي كنتناها ودرق دور الشدي كهله ما أنتي دور الشدي بعد الدول وجينا نكو طبعا تنمر واحد عادي دور الشدي مركي عادي واحد عانا ده وين acceptance للسنة يا ولا أقبله تيوي دعويد وحب لابنتي بوق بدن waxaan ku soo beegnay runtii xilli dagaalkii siyaasadeed ee xisbiyada mucaaradka iyo dawladdu ay banaanka ay isku haysan jireen in baarlamaankii la soo galo oo la isku qabsado xisbinimo deegaannimo qabyaalad anu ma jeclay inaan u hadlo as a politician dadkaygii baa tiin waxaan jeclay in by heart aan u hadlo waayo ma jeclay inaan been idin sheego mushkiladda jirtay Soomaaliland haystan waxa weeye waa run la'aan runta la iskuma sheego waliba dadkeena siyaasiyiinta waaweyni iskuma sheegaan anu imika waxaan ahay siyaasi marka dadku igu yiraahdaan dhalinyar baa tahay anu ereyga waan dhibsadaa runtii ma yihi dhalinyar prime ministerka wadankan haysta waa 42 jir 6 sanadood baan iga weyn waa isku generation baan nahay wuxuu rangaraynayaa entire nation ka soo dhan sababa galiyo reerkiis wax kale ma jiraan tusaale ahaan anu imika waan la qabsaday waxyaabaha ay ugu darnaayeen meel walba dariiqan ka mari karin waxa kamid ah anigu wiil yar oo dhalinyaro baa tahay chance aanay dadka kale aanay helin baad heshay maxaa ku wala ku xijiyay iska shaqayso dadna dadkii baa kugu dhiirigelinaya inaad corrupted MP noqoto tusaale kale aan ku siinayaa imika caawa mid kamid ah hadii lagu mid kamid ah hadii mid kam caawa hadii mid idin kamid ah loo magacaabo COO-ga SAT service ama e-dahab mushaarkiisu yahay $10,000 ama $20,000
عدك همبليين يساوي يرتا هدي ساعة ولا قاعد يقول أرمنا فاينانس كوزارة عافماتك أما أرمنا فاينانس كوزارة وحبرشة ولا قاعد يقول فيسبوك وحقريري يا همبلي ذات صوت واحد كلامها وميل واحد شوك تشحاده والله هو يمنيا وإحنا نصيبه الورنيا حداد وح بيحوي إذا نوح الورنيا والنعس وحو أنتم ماشي السنة ضد كمور دقن استقون وحبك ما قبصن حداد سعنتوا على الورنيا فريد بات هاي والله إني كاسو كفر قبصن وكفاية يستمشي ده تنمر كادت كي نوح قيب كيهين إني يعني برمود قريان إني كوربشن فرمود قريان وإمك أودياش إنه أنت بدل مركي قفك حلو دونيان والميل دفلنو جيب الله هذا دع له ميل دع النوجي تمرك التاسوح كم تاعي إن دتك عدوني سان إني وحيدين قبطان إني محي طلائن أي وحبك السورة جريوايان إن تاسوح خلاف جود أي واحد سببي وحنا نرجين يا إن دتك إنه خالد بيكو في عينين ما أنت استراضه وحبضن بي وقدر أنت هاي ومع المها صارون السوق يضل سلي هاي كركالس كشريا إن مدي اللي مركب أي واحد بدلي كريان إن شاء الله ونحن رجينا يعني صدق يتمكن نوفمبر كهر لجاري دونه حل سياسية. حنكلو ربعنا أنا وجودي ده أرميه بالشدة كم ده هاي حنشعل عينا وربحين يرى أرميه بالشدة إذن لو ده جو صوبت يو كلفتين وحوي وحكي لماها أدام أتيين قرب شوقي وحوي والله فرت وين يودل كان ليه هاي سوماليا ميزانية دي 200 مليون dadka qurbaha joogana waxay soo diraan 1 billion above bay soo diraan sanadkii waad garan kartaa wadan curdina oo 500 milyan miisaaniyadiisu tahay oo 50% ama 49% ay ku baxdo nabadgelyada mushkilada kale jirtana waxa weeye waxa meesha ka baxday dadkeenu barigii hore dadku aad bay isugu naxariisan jireen aad bay isugu ilaalin jireen aad bay raximnimada iyo qaraabada u ilaalin jireen aad bay jaarnimada u ilaalin jireen hadda soo waxaad moodaa in individualism ku inagu batay adduunyo jacaylku inagu batay qof walba uu tiisa uu isleeyahay kororso waxyaabahan ogaadeen waxaa ka mid ah ninbanni ku ka jeebroon yahay amarka ilaahay waa ka hunguri badan yahay oo doonista lacagta iyo adduunyada waxeeda waa ka fiican yahay sida ay walaashay sheegaysa waxaan aaminsanahay qofku ka dan yar yahay inuu ka iimaan wanaagsan yahay sida ogtiin iminka Soomaaliland waxa farabaas ku haya xanuunka xumada ilaahay ummadeena ha ka dulqaado xanuunkaasi waxa uu ugu badan yahay gobolka Maroodi Jeex gaar ahaan Hargeysa waxaana buuxa dhammaan cisbitaalada dad badan ayaana jira oo aan lahayn awood dhaqaale oo aan iman karin cisbitaalada waxa qaaliyoobay agabkii iyo daawooyinkii xumada lagula tacaali jiray markana caadi ba xitaa qaaliyooday oo maanta $12 maraysa dawooyinkii xumada waxa ku biiray mid kasta 50% ayaan darooyinka jiray ee wadankeena ka jirana waxa kamid ah mar kasta oo ay baahi timaado waxa laba jibaarma waxa loo baahan yahay dadku ku dhibaatoonayaan halkii ahayd in ummaddu marka ay dhibaato gasho يعني واحد ولا reduce كراي سيد دتكو أي باهيدو ده أي قف كستو available ونقدر إنه يبسن كرايو لكن واحد مودادات كنا ما جنا عشان إنه مركز تو أي باهي جرتو إنه كفاء يديستان إنه يوحي أي شيء قصي كلام إحنا الآن سنة هاي دتك إنه أما دلك إنه وإحنا ما قبسن كرنا ووحنا نجا إنه وحنا وحنا أودي إن دقالة ظروف تاعنا كنا والله هاي أي قاعدنا يسوقت بدن إن كوجانو لكن أنا جو مادام أني تا عن سنة كاي صدق لا بيرون الحلوان كاي بدي ده أرمها بالشدة أنا واحد بدن من حوجار كاي واحد شيء واحد بدن أو أمضي إنه جاي إنه قبسن كرنا إما كتصالحان واحد عضي كوفيد 19 بقى دعي ودن كيني واحد قومي مثلا إما كادت كوي وردين واحد وأكسجين وده كان عندك تشوكتان واحد والبيت كوي كل عق The only thing idin ah free waa oxygen taa neefsanaysaan ay qaadanaysaan bal taas oo lacag ay imagine adigu binaadamkuna ilaa uu horta isagu dhibta ku dhacdo ma dareemo horta aniga
marka la qof baa oxygen baahan marka aan qofku dhibaatada ku dhicin ma dareemi kartid waxaan rabaa inaan wax yar la wadaag waxa dhacday marar ka mid ah in aabahay uu aniga xanuunsaday waxa ku dhacay stroke waxaana ku sii dhacay sambabada marka dhakhtarka international baan geynay xanuunkii hayay maahay xanuun kale ku sheegay waxay yiraahdeen wadnaha xanuunaya dadka waxay yiraahdeen wadnaha ayaan ka qalaynaa hooyaday oo dhakhtarada baa tiri ka daaya halkan lagu maqali karo aynu qaadno waxaan isku dayay markaa inaan u raadiyo inaan dhakhtar Ethiopia u qaado diyaaradii baan tagay waxay yiraahdeen qofka noocaas ma qaadi karno hadduu oxygen u baahan yahay haddana waxaan siri ambulance ku qaad ambulance tima waayo isaguna waa jilicsan yahay kuma ogin markaa inuu stroke ku dhuftay dabadeed markaa aniguna runtii aabahay waa qof wanaagsan oo si fiican ii soo koriyay duruufteeda dhaqaalana markaa way adkay waxaan siri hadday deetiisa tahay inta kastoo ilaahay u simantiin hadday tiisa tahay oo tiisa noqoto isagoo faraxsan oo arkaya in loo dadaalayo ha ka tagto moraliguna qofku qayb buu ka yahay dabeed markaa waxay igu qaadatay inaan diyaarad ambulance ah oo $17,000 ilaa sabab qura inaan meel ay igu qaadatay baan ka soo raadiyo sidii baan ku qaaday sababaan tagnay xanuunkii lagu sheegay ma wax kala lagu sheegay waxa la yiri sambabada 80% dhintay iyagii laftigoodu markii dambe waxay yiraahdeen qofka noocan waxba kama qaban karno waan soo celinay dad markaa waxay yiraahdeen muddo 60 maalmood haddii uu noolaado oxygen-ta iyo daawadaas aan siinay haddii uu noolaado soo celiyo haddii kalena qofkan waxba kama qaban karno hargeysaan keenay maalintii wuxuu qaadanayay 3 xamood oo oxygen ah dhakhtarka weyn baan tagay waxaan ku leeyahay oxygen baan u baahnaa home care baan u sameynaa waxay ugu yiraahdeen halkan keen maadaama uu nagu yarihiin haamuhu haamaa xitaa ma aqaano qiimahooda markaa intuu yahay ina baan tagaan ku xagee haama lagu iibiyaa meel buu tilmaamay meeshii baan tagay xabadii haanta ahayd waxaa lagu yiri waa $250 سلندرتي وي والله بقول لكم $10 منان مودي ندو حنو يستوح $60 يا $40 لسي وحصير رعب هالك لو دوشة كجا حرن أو $7 إينا لسي لو بقول لكم تاني $7 مش صدق بقول لات حتى أنا هان تمرك أكسجين تلقوا شو بيو وعشان $60 كلا بحنيه طبعا تنمرك عن صدق دي سوي بي وعن كوبي تون عشو maalin walba $110 iga baxayeen oo ay naftu hayso aan waxba aanan haynin ayaa habeen anoo iska fadhiyo baan waxaan siri nii wiilka kula mid ah ama gabadha kula mid ah qeyrkaaya ee maanta aan xilibaan ahayn ee aan saaxiib ahaysan oo anigu haddaan maanta lacag waayo de maxamed baa igu dhawo saaxiibkay waxaan oran karaa maalmo muddo $100 ka qaadi karaa waxaan sirto duruus ay ku nooshahay maxay tahay marka anigii xilibaana aan sida yani ula dhibaatoonayo qofkay waana duruuftiisana aan qaadi kareynin dadka waxaan isku dayay oxygen-tii maxaa tahay horta halkee lagu iibiyaa halkee laga doonaa sidee loo keenaa qiimaheedu intuu yahay anigoo taa la wareersan ayaa waxaa ila soo hadlay inaan saaxiibnahay oo gobolka Sool joogo guur gobolkii Sool ayaa ka soo baxday ayaa loo samaynayaa muxuu ahaa loo ururinayaa oxygen ee qaaran ku soo darso waxaan weydiiyay oxygen-tu waa misa wuxuu yiri $135,000 ayay ku imanaysaa muxuu ahaa ii sheeg tikada oo $135,000 waa ta soo saarta maalintii 100 haamood meelahaas ay soo saaraysaa nooca ugu fiican ee 200 ilaa 300 soo saarayna $150,000-170,000 way bal aad sawiro isbitaalkii Hargeysa oo ah isbitaalkii ugu weynaa qaranka isbitaalkii danyarta ahayd oo oxygen-tii lagu way ka gooday bal ka waran u sawir waxaad isweydiinaysaa waxa jira lacag laga qaado dadka corona waad aragteen oo idinku waa dugtay anu waxaan u tagnaa anoo guddiga arrimaha bulshada dhakhtarka 300 oo qof ilaa 400 oo qof maalintii laga qaadaa bal 300 oo qof ka soo qaad maalintii $45 waa $13,500 weey $13,500 times 10 markaad ku dhufato waa $135,000 every 10 days kiiba wadanka waxa loo yimin karayaa machine oxygen loo yimin karayaa maxaa haddaba meeshii haddaba jiray waayeen
مشكلة دائما كأن حل بان لماذا قمنا وحكوكا institution بعد دليل يسار عد الله عدة institution كان جوكتام وسير هذا أما أجاسمه هذا مع القبيل كوجسوا لفتي سؤال وقع الله سنة يعني ضواني كاجي أكسجين تكهذا أنا ما أنت هدان كهذا أكسجين هدان كهذا هدان وحبرشة كهذا هدان وحكهذا ضد إذا صرنا محبابين أعرف تني كانوا وايو أنا هبريون سوا حسبي المعارض كهذا قرضي أنا مسكشي دينه ومن تالت تيجي لي تيدت كينا خدي ما أنت حلبان كلا مدحونا يسكتوجان كيهين والدولة وحبضن والله قبتي بتشري ووحي وقبتي هنا جودي وشيء محرنا ورواية وحن كني وروا مثل رسم ترالوني ومدحونا رير كيسين هذا الكيس وعاو على ديديو وأنا هيسن وحنا ما انتهيست وأنا هيسن ولا لسه قدامه أو كعرر إن هذا لسه قدامه أو كعرر حاس كيسة يسديدي مرة ما نو يدون وضب كله فكرينا وميلو عرّ مشرو وأبتيا شيء ينا ظروفته كنوا لهاي بكتره ميل الله ميلو نكاسو عرّ مشرو هذانا الحمد لله بتاعيه مرخان هالخاطر كان خاصو أركابان تان لبص رادو رجعوا كذا من إلهي وحمد النقاه طب تنا مرخا وحا إيجا بابا وحا الله وحي طمع هاي الدنيا يجوشري هرت أنا جي صاحب كي أنا وسق مو أقول لكن waxaan isleeyahay labada waxay raadsan baatiin kala marka waan dheereeyay hadalkaygii jaaliyadan SSUK sida igu maqaala waxa la sameeyay muxuu ahaa 1997 jaaliyad macnaheedu waxa weeye waxay ururisaa oo ay midaysaa ummadda halka ku nool ee qurbaha ku joogta waxaan dhamaanteed ka codsanayaa inaad jaaliyadiina dhiirigelisaan jaaliyadu waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay inay dadkii xafiis u furto inay dadkii Soomaaliland ee gobolada waddanka oo dhow joogay register garayso oo ay cid walba og tahay oo jaaliyadu maanta ka warhayso ka soo galay ee waddanka ku cusub ee shaqo u baahan cid hagta waxa soo activity waxay u baahan yihiin in dhaqaale loo helo sida igu maqaalaa dadka jaaliyada ka shaqeeya waa dad mutadawiciin oo tabaruc ku shaqeeya oo shaqooyin leh laakiin waxay ku habboon tahay inay idinku shaqaaleysiisataan oo shaqada ay meelaha ka qabanayaan intay iska daayaan idinku aqoonaysaan lacag siisaan si ay danihiina iyo midnimadiina iyo kiina aan waxba garanayna ay wax u doonaan ka shaqo u baahan ka guri ka xumaado ka caafimaad qaba intaas oo dhan haddii aan activity-geedii iyo wixii lagu qabanayaan la helina waxba ma qaban karayaan runtiina anigu maalintii aan airport-ka sheegay baan ka yimi oo airport-ka Heathrow ka soo degnay anuu xisbinimadii iyo ciddii gaarkeeda ahayd iyo sumadan lahaa madaarkii Hargeysaan kaga yimi halkan anoo xildhibaan qarana baan yimi waxaan jeclahay waddan dimuqraadi baad joogtaan waxaan jeclahay waddanka markaad noogu timaadaan inaad fikradaha iyo caqliga halkan aad ku haysaan inaad waddankiina oola timaadaan maadaama aad hesheen idinku jaanis annagu aanan helin hadday ilbaxnimo tahay iyo hadday aqoon tahay iyo hadday duruuf nololeedba tahay laakiin marka aad timaado Hargeysa timaado haddaad anigiiba iga daran tahay maalmo dhexdaasoo maalmihii shirgudoonka lagu jiray baa inaan maadeerno Canada ka yimi ayaan wada fadhinay markaa nin baa halkaa ka hadlayo xisbiyada mucaaradku dhaleelay waxaan arkay ninkiioo durkayo TV-gii hoosta ka galay qaar maxaa ku dhaco wuxuu ka cadhaysan yahay ninka halkan ka hadlaya markaa imika adigoo London jooga oo halkan jooga hadduu nin caynaba jooga kaa xanaajiyo oo hadlaya dee ma caafimaad qabtida therapy baad u baahan tahay markaa waxaan ku baaqayaa midnimo wanaagsan waxaan diyaar u nahay cid kasta oo jecelna waxna weydiiso inaad na weydiin karto ama shakhsiyan cid su'aalka baqamiyi ay dee anaa soo doontay halkan mushkiladda waddanka haystaan waxaa kow ka qof mas-uul oo xil haya oo aan rabin in la xisaabtamo oo aan rabin in wax la weydiiyo marka laakiin aad diiday in wax la weydiiyo macnaheedu maxay tahay waxbaad qaldaysaa weeydi marka insha Allah noo soo duceeya oo in la joognaa midnimo aan ku baaqayaa insha Allah ta'ala